magacayga waxa la yiraahdaa Xasan Deeqo Nuur waxaan ku dhashay magaalada dawlad deegaanka Itoobiya magaalada Jigjiga waxaan ku noolahay magaalada Hargeysa waxaan ka shaqeeyaa gaari mayritaanka hadda muddo bila ayaan wada oo shaqo abuurkan aan furay waxaan ku doortay waxa weeye shaqo yaraan oo aad u baahsan magaalada markaan arkay ayaa meeshii shaqatii ugu rooneed inay tan tahay ayaan qaatay sidaa shaqada aan tan xoog u saaray oo ku furtay cid kale iga caawisay oo macnaha aanu shaqada hawsha ayaan hayaa qalabkan iyo hantigan meesha waxa weeyaan inaan kala iga caawiyo hadafka aan ka leeyahay waxa weeye inaan ka midho dhaliyo oo macnaha sida maanta hawsha aan kooban ka bilownay in aan ka midho dhalno oo ay ballaarato dhalinyarada maanta ila midka sidii ay maaragtay shaqo abuur lacala taniba intay ballaartay shaqo abuur si noqon lahayd ayaan ku wada waxaan kula talinayaa inay fadhiga ka kacaan macnaha dad bilaaadmiyeen macnaha wax laga sugo maaha in macnaha shakhsi kasta maskaxdiisa intuu ka shaqaysiyo waa inuu hawsha barti ugu fudud uu ka qaban karo uu ka qabtaaban leh